السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta mudan ee ku xidhan channelka maanmaal soo dhawaada. waa xalqadii sagaalaad ee taxanaheennii halxidhaalayaal weli aan la daahfurin. bulshadii ku dhaqnayd magaalada Skopje oo waaga ka tirsanayd dalkii la isku odhan jiray Yugoslavia iminkana ah caasimadda dalka Macedonia, iyadoo bulshadaasi ay ku jiraan sardhada hurdadii xalay ay galeen goor ay soo dhawaadkii tahay ayaa mar qura waxaa qaylay iyo sawaxan isku daray mayadhaankii magaalada ku noolaa iyada oo cabsi iyo walwal badani ay ka muuqdaan. waxaa la yaab noqotay in aanay jirin sabab la garan karo oo cabsidooda ka dambaysay, hase ahaatee xayawaanadaasi waxa ay sii dareemeen wax aadamuhu aanay ogayn oo ah magaaladan in musiibo weyni ku soo fool leedahay. 26 Julaay goor ay amintu ku beegnayd 5tii subaxnimo, Nicola Marinko iyo xaaskiisa Valentina waxa hurdada ka kiciyay dhawaqa iyo sawaxan ka iimanayay qolka fadhiga ee dabaqa hoose. Marinko intii uu salaanka ka soo daadegayay si uu uga war helo sawaxanka qolka fadhiga qabsaday, ayuu magaalada oo dhanka daaqada ka xigtay daymooday, balse dib magaalada haysata ishiisu ma qaban. qolkii fadhiga waxa uu soo gaadhay iyada oo qayladii iyo dhawaqii badnaadamay, hase ahaatee waxa uu arkay afarta koone oo qolka oo baalalkii shimbiruhu sabaynayaan. daaqadii qolka markii uu dhankeedii u dhaqaaqay waxa uu dhaahday qafaskii shimbiruhu ku jireen oo ruxmaya, halka shimbirihii qafaska ku jiray oo ahaa nooca loo yaqaano kanaariga uu arkay iyaga oo qafaska gudihiisa daadsan iyaga oo meyd ah. way iska caddeed shimbirahaasi sidii sagxadda sare ee qafaska ay isula dhacayeen iyagoo isku dayaya inay ka baxaan inay dhinteen. Nicola Marinko muu ahayn dadka khuraafaadka aamina, balse wuu dareemay in musiibo weyni soo food leedahay. labadiisii wiil ayuu toosiyey, dharkoodii ayuuna u geliyey. kadib qoyskii guriga ayay degdeg uga huleeleen iyaga oo qaaday waddada gasha banka cad ee dhaca duleedka magaalada. dhammaan xayawaanada magaalada ku nool waxaa hadheeyay cabsi iyo walbahaar baahsan, sababtoo ah qaab ilaa iminka aan la daahfaydin ayay u sii dareemeen mashaqada culus ee magaalada ku soo wajahan. nasiib xumo, digniinta xayawaankaasi bixiyey cidina dhag umay jalaq siinin marka laga reebo qoyska Marinko. saacadu markii ay ku beegnayd 5:17 daqiiqadood ee aroornimo, magaalada Skopje oo idil way ruxmaysay. waxaa dadka dhagaha tiray cod aad u culus oo onkad la moodo, halka badiba guryuhu ay dhulka la sinmeen. waxaa magaalada ku habsaday dhulgariirkii ugu weynaa ee magaalada ka dhaca muddo 100 sannadooda. saacado yar oo tirsan gudahood, dhulgariirka waxaa ku naf waayay 1,000 ruux oo magaalada u dhashay. dadka badidoodu way badbaadi lahaayeen haddii digniintii xayawaanka ay u dhugma yeelan lahaayeen. dhulgariirka magaalada dhulka la simay intii aanu dhicin saacad ka hor, askarigii booliska ee roondada ahaa waxa uu dareemay qoolaydii buuxdhaafmi jirtay waddooyinka magaaladu gebi ahaanba inaanay joogin, halka saldhigga bilayska gudihiisa ciidankii bilayska ahaa ee joogay ay ka cabanayeen cida joogtada ah ee ka imanaysay 2 ay oo saldhigga ku sugnaa. labadaa ay intay cida ku guda jireen waxa ay si joogto ah ugu boodayeen dhanka daaqadu ka xigto, iyada oo u muuqatay inay doonayaan muraayadda daaqadda inta ay jebiyaan inay ka baxaan. dhanka kale 120,000 oo aadame ah oo magaalada ku nool wax waliba caadi ayay ula muuqanayeen, kuwaas oo wax yar kadib hoyla'aan soo istaagi doona. beerta xayawaanka ee magaalada, waardiyayaashii waxa ay ku tooseen sawaxankii iyo qayladhaantii ugu argagaxa badnaa ee ay abid maqlaan. waxa ay arkeen xayawaanadii ku jiray qafaskooda oo kacsan, argagax xarad beelayna uu ka muuqdo. shabeellada iyo libaaxyadu qafasyadooda gudahooda ayay hore iyo gadaal u soconayeen iyaga oo cabaadaya, halka maroodyadii iyaga oo aad u cabaadaya ay awooddooda oo dhan isugu geynayeen duminta biraha qafaskooda. bilowgii waardiyayaasha waxa ay ula muuqatay inta uu ruux gudaha u galay beerta inuu xayawaanada argagax geliyey, balse baadhitaan dheer kadib faramadhnaan ayay la soo hoydeen. maroodyadii qalanjo ka mid ah ayay u suurto gashay inay jebiso birihii qafaska mid ka mid ah oo ay u baxsato dhanka kaynta jiqda ah. dhaawacyo culus ayaa soo gaadhay waardiyihii isku dayey inuu hor istaago. horjoogihii waardiyayaashu waxa uu degdeg u abbaaray dhanka xafiiska isaga oo qori cabbaysan kala soo baxay si xaaladdanka kan uu u xakameeyo. markii uu soo laabtay isaga oo qorigii sita ayuu la kulmay xaalad tii horeba ka cabsi badan. waxa uu arkay dhammaan xayawaankii beerta joogay oo mar qura degay oo aamusay. waxaad moodaa ilbiriqsi qura inay isku afgarteen qaylada iyo sawaxanka inay joojiyaan. xataa qalanjadii baxsatay halkii ay maraysay ayay istaagtay
iyada oo hoggaansan ayuuna waardiyaheedii qafaskii dib ugu soo celiyey. waxay u muuqatay xayawaanada dhammaantood hal mar inay qadarkooda isu dhiibeen. waxa ay ogaadeen in la isa soo galay oo aanu hadhin wakhti lagu badbaadi karayo. daqiiqada yar kadib ayay magaaladii bilowday inay ruuxanto oo isku daadato. ilbiriqsadii yaraa ee dhulgariirku socday oo dadka magaalada kaga badnaa 10 sannadood waxaa magaalada soo gaadhay burbur laxaad leh. dhismaha hoteelka magaalada ugu weyn laguna magacaabo Macedonia oo 5 dabaq ka koobani bidix iyo midig ayuu kolba mid u ciiraayay ilaa ugu dambeyntii 180 sariirood oo dadkeedii ku jiifaan uu dibadda u soo tuuray. jaajuurka iyo labanka dhismayaasha waxay hawada u duulayeen sidii in madfac laga soo ganay. dhulgariirkii markii uu dhammaaday dadka intii badbaaday ayaa isu soo baxay iyaga oo aan fariirsan. dadka deegaanka mid ka mid ah waxa uu yidhi waxaan u maleeyay magaalada in hubka nukliyeerka lala beegsaday. dhisme 6 dabaq ka koobnaa 2 dabaq oo ka mid ah waxa liqay dhulka. dhacdada ugu murugada badani waxa ay ahayd dhisme 3 dabaq ka koobnaa oo gabi ahaanba dhulka galay oo la waayey. dhismaha waxaa deganaa dhakhaatiirta magaalada iyo xaasaskooda. diyaaradaha kooxaha gurmadka degdega ahi waxay indhahooda ku arkeen holaaca iyo qiiqa isqabsaday ee buuxdhaafiyey magaalada. dhulgariirkaasi waxa uu dumiyey 80% dhismayaashii magaalada ka mid ah. dad 100,000 kor u dhaafayana hoyla'aan ayay ku dhaceen. 1,000 qof ayaa ku naf waayey dhulgariirkaas, 2,000 oo kalena waxaa soo gaadhay dhaawacyo culus. maalinkii xigay waxaa soo laabtay shimbirihii maalinkii hore ka qaxay magaaladan ayaan ka daran. waxaase isweydiin mudan sidee ayay ku sii ogaadeen aafada soo fool kale. ma waxa ay leeyihiin xayawaanku dareenka loo yaqaano dareenka lixaad. aqoonyahanada qayb ka mid ah waxa ay aaminsan yihiin xayawaanku dareenkan inuu ka kasbaday qarniyadii tirada badnaa ee uu soo noolaa oo uu dheefay khibrad mug leh, taas oo xayawaanka awood u siisay dhacdooyinka in ay sii dareemaan inta aanay dhicin ka hor. iyada oo ay jirto aadamuhu dareenka in uu lahaa maalin maalmaha ka mid ah, waxaa hubaal ah maanta in aanu lahayn, isaga oo taa beddelkeeda kaga kaaftoomay adeegyada ay u fidiyaan booliska, dhakhaatiirta iyo shirkadaha caymisku. aragti kale ayaa qeexda xayawaanadu dareenkan ay halista soo fool leh ay dareemayaan in ay tahay awood qarsoon oo Ilaahay iyaga ku gaar yeelay. si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah dareenka xayawaanadu dhibaatada soo foolka leh ay ku dareemaan haddaynu aadamo nahay in aynaan lahayn. sidaa awgeed waxaa muhiim ah goorta xayawaanku digniintaa bixiyo in aan la iska indha tirin ee loo dhugmo yeesho. rid dheg taagtayna allaha ka yeelee. muuqaalkeena maanta halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. muuqaalka xiga inta aynu ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaday.